madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad markii uu magaalada madaxda gobolkaasi Togdheer ee Burco uu habeen u hoyday ayaa aroortii dambe uu ka soo ambabaxay isagoo uu soo gudbay gobolka Sool magaalada madaxdiisa Laascaanood halkaasi oo sida adaawanaysan dadweynuhu hareeraha wadadaasi ay safnaayeen iyaga oo madaxweynahooda soo dhaweynayay waxaana ku dhawaaqayeen eraya soo dhaweyna madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad intii uu degmadaasi Laascaanood joogay oo gelinkii hore soo galay isla markaasina uu doorkii uu ka soo baxay khudbad qiimo iyo qaale ayuu dadweynaha ku dhaqan degmadaasi Laascaanood isagu u jeediyay idinka oo imika u jeeda madaxweynaha oo baabuurkiisii la socda oo dadweynaha dhex socda wadada hareeraheeda tuban isaga oo gacanta u haatinaya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad oo si xiisan u soo dhaweeyay dadweynaha ku dhaqan degmada Laascaanood iyo madaxda gobolkaasi Sool khudbadiisaasi dadweynaha reer Laascaanood u soo jeediyay waxa uu ku soo qaatay in midnimada ay xoojiyaan isla markaasina ay xagga tacabka wax soo saarka iyo ay kordhiyaan gobolka Sool waan isogeen baahiyo oonka aad u qabteen si kastaba ha u socotee in gobolka Sool gobol laga dhigo way noqotay waxayna ku noqotay shir kuma jiro faditaanka dadweynaha ku nool gobolkan iyo kollayba asalku waa amarka ilaahay iyo madaxda qaranka wax dowladnimadu ama qaranimadu waxba bilaash kuma bixiso waxaan leeyahay dadka caadi intaas dadkaan ka gudbo gobolkii waa dhismay sharci ahaan waa dhismay laakiin deegaan ahaan ma dhismay waxaa loo baahaya dhisaan madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad waxa uu soo gudbay gobolkaasi nugaal magaalada madaxdiisa Garowe oo imika u jooga sida aad daawanaysid waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay taliyaha qaybta konton iyo afraad ee xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan sare Xuseen Shuqul oo iyo madaxda sare ee gobolkaasi nugaal iyada oo garoonka kubadda kolayga ee daawad uu dadweynaha ku dhaqan degmadaasi Garowe uu madaxweynuhu khudbad qiimo leh oo halkaasi uga soo jeediyay sidoo kalena khudbad isla markaasi warbixinaha uu soo jeediyay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Cabdalla Maxamed Fadil isagoo madaxweynaha ummadda Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad khudbadahaasi ku tagay waqtigiisa ay ku daawadeen halkaasi heesa ay soo bandhigeen waxaa ka cad Oktoobar ee degmadaasi Garowe
tilmaamaha uu samaystay uu gaarsiiyo ummadiisa